السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلو كورساقون channel iyo kororsaaqon.com labadaba magacaygu waa Cabdilaahi Ismaan muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sidii aad ku heli lahayd hosting iyo subdomain free marka waa su'aal soo noqnoqotay badanka tusaale ahaan courseskan ku jira website-ka sida JavaScript-ka WordPress-ka iyo HTML and CSS-ka inta wax la sameeyaa projects marka projectskaas marka aad doonayso inaad live ka dhigto waxaad u baahan tahay hosting iyo domain marka WordPress ko kale waxa ku jira iyadoo live laga dhigayo website-kii oo hosting-kii iyo domain-kiiba la gelinayo laakiin uu yahay mid paid kaasi marka mid free si ay ardaydu ugu sameeyaan tijaabo ayaan soo diyaarinay muuqaalkan marka casharkan maanta waxaad ku baran doontaa sidii aad ku heli lahayd hosting ama sites bixiya hosting free iyo subdomain لكن أنا لو استعمالين for production أما أنا لو استعمالين for real purpose لكن لو ترك لي testing for testing أما مركز دون سينا ويب سايت وكلا دستو أدين أد clients كي تستو أديكو إني العك حاجة بحناستن كدون سينا تستو قاب ويب سايت كويجي هاي واحد استعمال دون تا مركز سايتس كان ما تكون تستونه راح يكون دون hosting free سينا مركز هاوس سماينه وأنا السؤال بدن كسرنا نقطي sites badan oo bixiya ayaa jira hosting free-ga soo fur browser-ka isticmaalayso ka bacdina waxaad search garaysaa Google-ka gal markaad Google-ka gasho waxaad search garaysaa infinity free waa site-ka koobaad marka site badan ayaa jira waxaan isla arki doonaa dhowr kamida kuwaas oo aad ku host gareyn karto static sites-ka iyo dynamic sites-ka sites-ka database-ka leh login kala samayn karo sida WordPress oo kale iyo sites-ka static-ka HTML and CSS ku kaliya iyo JavaScript-ka marka labadaba arki doonaa waxaad gashaa infinity free markaad gasho waa mid kamid ah sites-ka ku ogolaanaya inaad hosting ku samayso ama aad hosting free hesho waxaad gashaa website-kooda infinityfree.net ayaa la yiraahdaa markaad website-kooda gasho marka koobaad waa in aad sign up tiraahdo ama aad account ka samaysato sign up ku dhufo sign up markaad ku dhufato halkan email gasho emailkan gelinaya waxa weeyaan waa kororso@002@gmail.com oo kale waxa laga baahan marka inaad email haysato halkan waxaan gelinayaa password aad xasuusan karto marka dambe marka waanu password-ka match karaysnaado password-ka marbaad gelinaysaa and then mar labaad ku celinaysaa and then waxaad tigsinaysaa I have read the terms and agreements then create new profile ayaad click siin doontaa inta markaad click siiso wuxuu email u diri doonaa ama fariin u diri doonaa verification link-ya email-kii aad ku samaysatay email-kan ayuu inaga ahaa waxaad geli doontaa marka email-kaaga ama gmail-kaaga waa kan verification link noo soo diray waxaad click siin doontaa halkan verify email address ay ku qoran tahay ama link-gan ayaad copy-in kartaa and then waxaad la tagi doontaa marka URL-ka marka inaga tan ay noo fudud waxa kan click siin doonaa marka button-kan click siino halkan ina keenaya waxaad click siisaa marka create account marka badanka waxaad arkaysaa xayeysiisyo badan maadaama free shaygu yahay aan loogu talagalin in aad waxyaabo production aad u isticmaasho iyagu waxay ka faa'iidayaan xayeysiisyadan ay ka faa'iidayaan premium-na uu leeyahay marka premium-ku waad karaysanaysaa isagu ma laha wax xayeysiis laakiin inagu just imika ka free-ga ayaan tijaabinaynaa waana caqabad haysta dadka Soomaalida ama ardayda Soomaalida oo badankooda ma haystaan payment methods sida credit cards-ka iyo PayPal-ka iyo ma isticmaalaan badankooda marka create account yani marka odhanayna create account marka tiraahdo marka koobaad wuxuu ku odhanayaa waa inaad samaysato domain-kaasi wuxuu noqonayaa subdomain ama custom-ku waa haddii aad domain soo iibsatay marka inagu subdomain-kan ayaan iska isticmaali doonaa marka waxaan ka soo qaadanaa in uu shilina inaga baxayn halkan ayaan marka gelin doonaa domain-keenu wuxuu noqonayo waxaan oran doonaa kororso tusaale ahaan solutions intaasaan sameynay ama iftiinshe ayaan bixinayaa iftiinshe website-ka iftiinshe ayaan bixiyay intaas markaan sameeyo halkan wuxuu ku weydiinayaa domain extension-ka marka domain extension-ku waa wixii xagga dambe ka raacay marka mid kamid ah halkan ka dooran doontaa inagu kaas aynu iska deysan karnaa ama infinityfreeapp.com inaga kaas ayaa u fudud kana iska deysanana
marka wuxuu website-kaagu noqon doonaa iftiinshe.ebisadwy.com marka subdomainkaad isticmaalaysaa wuxuu noqon doonaa ebisadwy intaasuu noqon doonaa inagu waxaa odhanaa check availability oo checkgrain uu available yahay and then wuxuu yidhi waa available domainkaasi intaa markuu inoo sameeyo waxaa odhan doonaa halkan accountka magacuu u bixinaya buu halkan inoo soo gelin doonaa just halkan passwordkii marka halkan waxaan odhan doonaa password ayaynu iska gashan doonaa ama wuxuu inoo samayn doonaa just password aan nagu gelino password 123 baan geliyey baan raaciyey marka waa password just waa for demo account-kan iyo waxaan dhan waa delete gareyn doonaa marka imika just sidaa aragto wax micnaa ma samaynayo create account ayaan idhi markaan create account idhaahdo wuxuu keenayaa halkan markuu keeno waxaan click siin karaa open control panel-ka inuu ii furo ayaan doonayaa control panel-kan dhammaantiin waan wada garananaa I approve ayaan click siinanaa I approve markaan click siiyo daaqadan ayuu keeni doonaa waana control panel-kii weeyaan dhammaan hosting providersku control panel-kan ayaa ay leeyihiin markuu halkan ku keeno waxyaabo badan baad halkan samayn kartaa waxaad samayn kartaa inaad databases ku samaysato inaad website-yadaada ku samaysato email accounts inaad ku samaysato wax badan ayaad ku samayn kartaa laakiin inaga waxaan u baahannahay wordpress oo kale file manager-kiina waa kan haddaad doonayso inaad marka file manager-ka kala gasho aan galno waa kan wuxuu ina geynayaa file manager-kii marka haddaad website-kaaga doonayso inaad failasha soo upload garayso halkan ayaad markaa ka soo upload garayn kartaa okay inagu waxaasoo dhan imika uma baahnin waxaan doonaynaa wordpress inaan si simple u install garayno hoos baan soo dhaadhacnaa waxaan tegaynaa halkan Softaculous app installerka kaas ayaan click siinanaa markaynu click siino wuxuu ina geynayaa meeshan halkan content management systems oo dhan ayaa kugu jira sida Joomla waxa kugu jira WordPress marka inagu WordPress aynu install oran doonaa install markaan idhaahno wuxuu odhanayaa website-kaaga waxaan u bixinayaa horta HTTPS ma heli kartid HTTP ma iska isticmaali doonaa SSL kama helasid encrypted ma ahaan doono site-ka magaciisa halkan gelin doontaa iftiinshe site description ka halkan gelin doontaa just waxaan odhan doonaa software solutions company and then halkan waxaynu gelin doonaa username just imika waxaan geliyay admin laakiin marnaba admin aan ka dhigin username-kaaga password-kana waxaan gelinayaa marka password iska fudud password 123 ayaan gelinayaa halkan waa email-kaaga intaas ayaan sameeyey markaa intaa markaan sameeyo waxa weeyaan WordPress-kii ayaan diyaar u ahay inaan install gareeyo waxaan odhanayaa marka install markaan idhaahdo wuxuu u install garayn doonaa WordPress waxyaabahan sameynay badankooga hore waan usoo aragnay markaad WordPress oo kale dad course WordPress oo kale qaadatay haddiiba aanad weli hore u qaadanna kolley muuqaalkan waxaad u daawanaysaa waxa weeyaan inaad website hosting ku samayso waanad garanaysaa sida website-yada loo sameeyo baan filaya daaqadan ku keenayaa daaqada markuu keeno micnaheedu waxa weeyaan installation-kii WordPress waa lagu dhameeyey website-kuna waxaad ka geli kartaa iftiinshe.ebisadwy.com dan right click nidhaahno open new link aan idhaahno ama new tab halkan ayuu inooga soo saari doonaa website-kii oo uu inoo host gareeyey domain-kii aan dooranayna uu inoogu sameeyey laakiin encrypted ma aha secure ma aha just waa demo oo horan kugu sheegay waxaan sameynaynaa website-kii inaan gelinaan doonana website-ka si aan u galno waxa lagu geli jiray laba meelood baad ka geli kartaa inaad imika website-ka halkan ku qoran yahay domain-kii aad tiraahdo wp admin ood enter siiso and then login screen-kii ku geeyo iyo inaad halkan ka gasho labadaba waad samayn kartaa inagu halkan username-kan soo samaysan admin buu ahaa password-kuna wuxuu ahaa password 123 buu ahaa intaas ayuu ahaa login ayaan odhanayaa login markaan idhaahdo wuxuu geynayaa dashboard-kii
WordPress ayuu geynayaa waxaan samayn karaa markaa dhammaan waxyaabaha WordPress ku samayn jiray tusaale ahaan appearance-kan tegi karaa themes-kan tegi karaa themes-ka markaan tago waxaan samayn karaa team cusub ayaan kusoo darsan karaa add new team and then waxaan odhan karaa markaa Astra oo kale okay wuu install gareeyay and then activate ayaan odhanaynaa and then teamkeeni waa la bedelay marka haddaan ku noqono website-keeni teamka la bedelay ayaan arki doonaa laakiin starter templates-kana waan raacsanaynaa Astra starter templates-ka waxaan odhanaynaa get started si aan demo site usoo upload garayno okay build your site and then Elementor baan dooran doonaa waxaan odhan doonaa okay daaqadan ku keeni doonaa markuu daaqadan ku keeno waxa ku jira site template ah oo isticmaali karto marka inagu just waxaan iska isticmaali doonaa kuwa free-ga kuwa premium-ka isticmaali mayno maybe kan oo kale in click siin doonaa markaan click siino waxaan odhan doonaa skip and continue and then continue baan odhan doonaa waxaan odhan doonaa markaas submit and build my website and then wuxuu dhisi doonaa website-kii waxaan ku tusi just sababtaan intaan u sameynayaan waxaan doonayaa inaan ku tuso website-kii oo content-kiina ku jiro content iska tijaabo ah template dhammaystiran uu ku jiro waqti yar bay qaadanaysaa inkastoo hore uu dhisay website WordPress gaar ahaan isticmaalay template uu garanaya waqtiga qaadanayso marka just imika waa intuu inoo soo import gareynay pageska menuska posteska pluginska wixii oo dhan marka waan iska sugi doonaa waqti yar bay qaadanaysaa okay uu dhammaystiray inta markuu inoo dhammaystiray imika waxaan samayn karnaa visit website baan odhan karnaa okay baan linkigan siin karnaa and then waynu arki doonaa sida website-kan imika dhisnay aynu soo import garaynay minaan dhisina template-ka ahaa aynu host garaynay infinity free uu u eegyahay waa kan qaabkan u eegyahay haddaan kasoo galno browser kale oo aan linkigan hubisano ama mobilkaad kasoo gashana waad arki doontaa qaabka uu eegyahay halkan aan ku paste gareeyo and then aan inta idhaahdo secure maaha oo SSL certificate ma leh laakiin just practical waa ku samayn kartaa marka halkaa qaabkan ayuu eegyahay oon soo import garaynay website-kaas imika wuxuu host garaysan yahay ama aynu host garaynay infinity free hostingka iyo domain-kaasiba waa free design-kana just waan soo import garaynay waan bedbedeli karnaa haddaan ku noqono waxaan samayn karnaa in aynu galno dashboard-ka and then aynu samayno visit site aynu nidhaahno and then edit Elementor aan ku dhufano marka waka waan bedbedeli karnaa shay kasta waan bedeli karnaa waxaan geyn karnaa shay kasta waan bedeli karnaa Elementorna waa isticmaalana marka waka site-ka labaad aynu eegi doonaa ee ku siinaysa free hosting okay site-ka inoogu xiga ee aad free hosting ka heli karto waxaa loo yaqaanaa cloud access waxaad gelaysaa google-ka google.com markaad gasho waxaad search garaysaa cloudaccess.net ama cloud access un search garee and then waa kan website-koogu waa cloudaccess.net linkiga muuqaalkana daawan soo siisin waad ka geli doontaa markaad gasho aad kalik siiso daaqadan ku keeni doonaa markuu daaqadan ku keeno marka koowaad wuxuu u baahan yahay inaad sign up tidhaahdo ama intiinan sign up odhan ama aan sign up nidhaahnaba sign up si aan account uga samaysano
kabacdina wuxuu ina odhan doonaa kani markaa wuxuu ku siinayaa 30 days staging site aad ku samaysan karto oo 3 cisho oo ay ku wali jirto shayga aad ku samaysataa marka kani wuxuu halkan markuu ku keeno daaqadan waxaad doorataa halkan need a limited staging site only and then add here ku dhufo wuxuu ku siinayaa content management systems kala duwan sida WordPress iyo Joomla haddaanad content management system aanad u baahnayna oo adigu dhisaso mid custom ah halkan ayaad klik siin doontaa empty hosting ay ku dhufan tahay ay ku qoran tahay kabacdina imika inagu tan WordPress-ka ayaynu startna odhananaa markaynu start u idhaahno wuxuu ina geyn doonaa halkan ina keeno halkan markuu ina keeno waxaan u baahannahay inaan domainkii samaysano marka waa subdomain haddaad domain hore haystin waad ku xidhi kartaa laakiin kuwaas limited site-ka staging site-ku marka koobaad kuma xidhi kartid domain kale just waxaad u baahantahay subdomain inaad ku xidho laakiin marka dambe dib waad ka upgrade garan karaysaa lacag iska bixiso just inagu imika waxaan u baahannahay wax free ah halkan ayaan gelinaynaa iftiinshe 1 oo kale aan geliyey then halkan extensionka subdomainka aad raacinayso ayaad ka dooran karaysaa cloud-access.host baad dooran kartaa ama waxaad dooran kartaa freesite.host ama cloud.com ama waxaad dooran kartaa wpdev.cloud.com marka inagu freesite hostkaas aan iska doorananaa ama cloud access kaaba wankan oo kareebinaa iftiinshe cloud-access.host baan ku daynaynaa next ayaan odhananaa next markaan idhaahno waxaan eegi doonaa in uu available yahay iyo in hore loo qaatay domainkaas waa alright wuxuu ina keenay sign up samee buu ina leeyahay marka markii aynu sign up nidhi toos inoomu keenin daaqadii sign up-ka imika ayuu noo soo saaray marka imika wuxuu leeyahay horta xaggan hore login ama sign in laakiin waxaad ku dhufataa buttonkan sign up here marka inuu marka hore noo soo saaray ahayd anyway imika ayaynu sign up samaynanaa sign up here baan ku dhuftay daaqadan ku keenayaa kabacdina waxaad tidhaahdaa sign up with Google ama xogta toos ugu buuxbuuxiya halkan sign up with Google markaad tidhaahdo halkan waxaad ka doorataa marka Google account-ka inaad isticmaasho doonayso markaan kaas ayaan isticmaalaya kororsa aqoon no just for testina aan ahayn kii saxdii for real isticmaalanay country-ga waxaan doorananaa Soomaaliya state-ka halkan ayaad markaa gelin doontaa zip code-ku waa 000 mase gelinanaa password-ku waxaan gelinaynaa password yar oo iska simple ood xasuusan karto okay wuxuu u baahan yahay halkan address kan labaad waa optional city company name-kana wax iska geli number-kana halkan geli markaa intaa markaad samayso halkan su'aal security question ayuu ku weydiinayaa mid ka dooro kuwan kaasoo kale iska doortay kabacdina waxaan idhi I'm not robot and then I have read terms and agreements and then register numberkii aad ku samaysatay wuxuu ku dirayaa verification code and then verification code-kaas ayaad gelin doontaa micnaa ma samaynaya haddaan ku tusayo haddii kaleba and then verify baad oranaysaa verify wuxuu yidhi successfully verified and then wuxuu ina geynayaa markaa client area halkan ayuuna keenay halkan markuu keeno waa meeshaad ku shaqayn doonto waa markaad login soo tiraahdo new product baan inagu imika click odhananaa ama click siinanaa
new product markaan click siino daaqadii hore inuu soo celinayaa markii hore sign up inaynu sameynay ahayd laakiin isaga ina keenay oo daaqada nagu soo horeysay halku sign up inagu soo horeysin lahaa laakiin imika already login baan nahay oo account baan ku jirnaa samaysanay xagan dad fiirsato waa kan waxaan odhanaa markaa imika ayaan odhanaa add staging site only and then waxaan ka dooranaa wordpress markaan ka doorano wuxuu ina geyn doonaa hadaad Joomla u baahan tahay Joomla dooranaysa hadaad u baahan tahay mid custom oo HTML iyo CSS aad ku dhisteen xagan ayaad dooran doontaa launch empty hosting-ka wuxuu ku weydiinayaa markaa halkan domain-kii waxaan ugu gashanaa iftiinshe and then waxaan odhanaa next step oo ah inuu check gareeyo domain-ka oo subdomain weeyaan domain-kaas ayuu noo check gareyn doonaa inuu jiro iyo inuunu jirin marka hadduunu jirin wuu inoo sameynaya haddii hore loo qaatina wuu inaga joojini waa sax configuration-kii wuu inageynayaa marka waxaad ku deysanaysaa WordPress default halkan waxoogaa description inaad geliso kaa doonayaa marka haddaanad waxba gelin halkan next aad tiraahdo kuma dhaafinayo waxaad oranaysaa markaa tusaale ahaan just a demo site baan dhiba and then next step baan idhi next step markaan idhaahdo wuxuu geyn doonaa orderkaygiibuu markaa ay diyaarin doonaa halkanna keenay and then halkan markuu keeno checkout baad oranaysaa wax lacag kama baxso waa $0 cardna kuma uma baahna ku xidhno marka checkout ayaan idhi markaad checkout tidhaahdo wuxuu ku leeyahay halkan free orderka ku daa halkan waxaad tidhahdaa I agreed to cloud access terms and services halkan waxaad tidhahdaa I am not robot and then confirm order dheh intaa markaad samayso wuxuu ku diyaarin doonaa marka installation-kii baad toos samayn doonaa marka isla aragno inta markuu sameeyo waxaad tegi kartaa halkan go to your cloud control panel kan ayaad click siin kartaa markaad kan click siiso waxayna geyn doonaa marka control panel keeni waa halkanna keenay marka qaabka control panelkiisu kii hore uu ka duwan yahay marka imika waxaan haysanaa halkan site la yiraahdo domain iftiinshe.cloudaccess.host la yiraahdo ayaan haysanaa waa active renewal waxay u baahan tahay 30 cisho ka bacdi marka 30 cisho ka bacdi waad renewal ku sameeyni haddii kalena imika toos bay kugu shaqeynaysaa upgrade baad ku samayn kartaa oo wax yar intaad iska bixiso ayaad hosting-kaaga rasmiga ka dhigi kartaa terminate baad oran kartaa waad delete gareyn kartaa waxaad oran kartaa marka sidoo kale login markaad tiraahdo wuxuu toos ku geyn doonaa site-ka sidoo kale haddaan ku noqono oo halkan click siino link-gan and right click open a new tab nidhaahno wuxuu toos kugu soo furi doonaa site-kaagii waa kan site-kii marka team-kan ayaa ku jira aadka u foosha xun laakiin adiga ayaa qurxin doonaa oo bedeli doona sidoo kale markaan login halkaan nidhi tab kan kale ayuu noo furay oo ah WordPress dashboard-kaygiya appearance ka tegi kartaa teams ka tegi kartaa teamkaad iska bedeli kartaa content-kaad iska bedeli kartaa page-aad leedaad kusoo dari kartaa adiga ayaa full customization u leh taasi wataa waxa kale oo aad samayn kartaa marka in aad kusoo geli karto qaabka caadigii ee intaad site-ka qorto magaciisa wb/ aad ka dambaysiiso /wb admin taana waad kusoo geli kartaa marka waka sidaas ayaad ku samayn kartaa free sites kan haddaan ku sii socono Astra oo kale ayaynu installation ku samayn doonaa kan laftigiisa ama team kale baynu activate gareyn doonaa just si aad u aragto in wax walba caadi u shaqeynayo waxaan activate gareyn doonaa team-kan 2023gu waa yar ugly kan 2023 ayaa ugly 2022 ayaynu activate gareyn doonaa marka si aad u aragto inay wax badan isku bedeleen fresh baan noqon doonaa and then waka site-kii inuu waxaad aragtaa inuu isbedelay team-kii aan bedelnay team-am kale aad soo gelin kartaa waxaad soo upload gareyn kartaa ama soo import gareyn kartaa demo site adiga ayaa mid customer dhisan kara marka hosting-na sidaas ayaad ku samaysan kartaa waxaanu team-am aad mid ka dooran kartaa and then aad soo import gareyn kartaa site-kaas oo site dhammaystiran ama aad adigu from scratch ka bilaabi kartaa marka just inaga waxaan u baahnayn hosting-ka
intaas ayaan ku dhaafaya kana site-kana sidaas hosting aad uga heli kartaa. keena saddexaad waxa weeyaan mid caan ah waxa la yidhahdaa Netlify. Waxa ugu wanaagsan Netlify baa la yidhahdaa. Netlify wuxuu ku wanaagsan yahay site-dadka static ah. Static waxaan ka wadaa aan database u baahnayn, aan data in laga soo akhriyo dhanka database u baahnayn, just information lagu soo bandhigayo. marka kan oo kale waxaan imika ku samayn doonaa marka kan oo kale imika waxaynu ku tijaabin doonaa application yar oo aan ku sameeyay ama ku jira course-ka JavaScript oo kale ayaynu ku import garan doonaa ama web ama yani HTML CSS JavaScript file yar ayaynu ku soo upload garan doonaa. marka kana si aad u samaysato markaad soo gasho netlify.com waxaad oran doontaa sign up markaad tiraahdo waxaad tagi doontaa mid hore ka soo saaray waxaan oran doonaa sign out adigu markaad soo gasho Netlify sign up tiraahdo halkan ku keeni doonaa. marka waxaad ku xiri kartaa kuwan version control systemska ama sida GitLab iyo Bitbucket mid kamid ah dooran kartaa ama email-kaaga ayaa dooran kartaa. marka GitHub iyo waxa marka leen ka hadli doonaa iyo Gitba course weyn ka diyaarin doonaa. halkan ayaan just imika gelinaynaa email-ka kororsa aqoon 201@gmail waa mid iska testing aan ku sameynano. halkana password baynu gelin doonaa kabacdina sign up ayaynu odhan doonaa. markaynu sign up nidhaahno wuxuu ina geyn doonaa waxaan tegi doonaa email buu ku diray marka fariin ama verification code buu diri doonaa. waa kan verify baynu odhan doonaa. markaynu verify nidhaahno wuxuu toos inoo geyn doonaa redirection noogu samayn doonaa dashboardka Netlify. halkan ayuu ina keenayaa wuxuu dooro kornay halkan xog yar buu ka buuxinayaa. maxaad isticmaalaysaa tusaale ahaan just for personal waxaad qoran kartaa freelancer ama hobby developer ama other baad iska dooran kartaa. my first project will be something else waxaad oran kartaa halkan text to speech converter. marka application yar oo ku jira course JavaScript-ga ayaynu halkaas soo gelin doonaa text to speech converter weeyaan ama waxaad doontaad gashan kartaa. xageed ka aragtay Netlify just social media-haba project-kaaga waa maxay waxa weeyaan tag ama team-kaaga waa kororso aqoon team baan soo oran karnaa and then set up and continue oran kartaa. inta markaad samayso marka waxaad haysataa in xagan ka soo jiidato git-ka in aad template sare isticmaasho ama inaynu si manually u deploy karayno site-keena. marka just nagu taa manually-ga aynu isticmaali doonaa inuu deploy karayn doonaa si aad ila aragto mid walba. waxaan tegi doonaa in yar ka text to speech application kaas ama text to speech converter kaas haddaan isla eegno waa halkan ku jira waa application kan markaad soo furto double click siiso qaabkan uu soo baxaya waxbaad ku qoraysaa saasoo intaas kale aan ku qoray. okay marka that convert to speech tiraahdo This is just a demo application. okay qoraalkaad qorto ayuu kugu dhawaaqaya. marka waa mid kamid ah projects-ka course-ka JavaScript. anyway kaas aynu geyn doonaa Netlify-geena aynu samaysanay. marka halkan ayaan joognay waxaad samaynaysaa marka just file-kaas ayaad soo jiidi doontaa drag and drop aynu ku samayn doonaa folder-ka uu ku jiro and then wuxuu ku leeyahay uploading please don't refresh. uploading-kii buu wadaa wax refresh ah ku samaynin and we will wait. okay wuu noo dhamaystiray xoogaa xaggan hoose haddaan eegno production-ka waxyaabaha socda waa kan
okay waa live sitekeeni waa live way shaqaynaysaa back baan odhan doonaa waa kan sitekeeni markaa haddaynu right click nidhaahno open new link aynu nidhaahno ama new tab qaabkan uu soo baxaya websiteki dhexdiisina waxana weeyaan muxuu ahaa waana live weeyaan marka waxaan ku noqonaynaa xaggan si aynu magacan isaga bedelno in magac caadi uga dhigano xaggan aan ku noqon doonaa markaan xaggan ku noqono waxaan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay site overview and then domain settingska markaan tagno waxaan oran doonaa halkan optionskan aynu click siin doonaa kabacdina site namekaynu bedeli doonaa site nameka markaan soo furno waxaan oran doonaa text to speech converter intaas ayaan bixinay text to speech up ayaan odhan karnaa text to speech up okay ayaan odhan karnaa and then save ayaan odhananaa save markaan idhaahno already waa la qaatay buu kaliya magacan qoraal u bedel hadal u bedela baan odhan karnaa ama qoraal hadal qoraal iyo ama qoraal hadal ayaan odhan karnaa then save baan odhananaa qoraal hadal.netlify.app ayuu noqday iminka haddaynu tagno mid kamid a browseradeena kale sida Google Chrome oo kale ama Edge oo kale kabacdina aynu search garayno qoraal to hadal.netlify.com aynu enter siino waa in uu applicationkani noo soo baxo ka adiga iminka daawanaya muuqaalkan waad tijaabin kartaa applicationkan waad tijaabin kartaa oo iminka live weeyaan kan hore uga saari maayo waxa isaga jiro qoraal to hadal.netlify.app inta linkiga aad geliso waad soo geli kartaa waadna tijaabin kartaa xataa mobilekaaga waad ka soo geli kartaa marka site-kana saas ay live ku tahay sidoo kale waxaad kan ku samayn kartaa in aad domain aad soo iibsato domainka aad soo iibsatay aad halkan ku bedelato inaad ku bedelato imika waa subdomain oo .netlify baa raacaysa laakiin aad halkan ka dhigan karto tusaale ahaan iftiinshe.com oo keliya aad ka dhigi karto iyo hadba domainka aad u baahan tahay marka kanoo kale waxaa lagu sameeyaa portfolioska marka intaas ayaan ku daynaynaa saddexdaas ayaan ku daynaynaa way jiraan qaar kale oo ku siinaya free laakiin kanoo kale ugu wanaagsan github baynu arki doonaa laakiin cashar kale ayaynu ka samayn doonaa github pages weliba oo isagana static siteska loo isticmaalo intaas ayaan ku daynaya casharka maanta la soco casharada xiga ku xidhno kororsa aqoon channel iyo kororsa aqoon.com labadaba waad ku maadsantay daawashadaada thank you